aqoonta ayaa dalka u horseeda in uu noqdo mid horumar wanaagsan oo muddo dheer jiri kara gaadha waxaa sidoo oo kale ay u horseedaa dadka aqoonta leh in ay helaan shaqooyin wanaagsan iyo in ay aalaaba si togan nolosha saameyn ugu yeeshaan horaa loo yidhi aqoon la'aani waa iftiin la'aan maanta baro aad berri hogaamiside wasaaradda waxbarashada oo dawladda Soomaaliland mas'uulka ah waxbarashada ayaa aaminsan in dhammaan muwaadiniinta ku jira xilliga waxbarashada aqoontu ay deegaankooda ku helaan waxbarasho tayo sare leh oo bilaa lacag iyada oo laga maalgelinayo cashuurta ay bixiyaan muwaadiniintu iyada oo taasi laga duulayo ayaa labadii sano ee u dambeeyay dugsiyo badan laga dhisay dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana la kordhiyay tirada iyo tayada macallimiinta dugsiyada dalka wax ka dhiga waa kuwana qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada oo ka warbixinaya dugsiyada la dhisay iyo baahida ay u qabeen muwaadiniinta deegaanadooda laga hirgeliyay dugsiyadaasi cusub magacaygu Xamse Axmed Caabi waxaan ahay maamulaha dugsiga sare ee Digaale dugsiga waxa la aasaasay oo la dhisay ama xariga laga jaray 3 bishii 7aad 2021 dugsigan waxa laga maalgeliyay miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ayaa laga maalgeliyay aad iyo aadna runtii waa loogu baahnaa dugsigan Digaale oo sababta xaafadda oo magaalada ka soo durugsan ayaa dadku ardayda ka soo baxay dugsigan primary-ga Umar Dinaar oo halkan ku yaala ayaa waxay tagi jireen dugsiyada hoose xaafadda Maxamed Mooge iyo sidoo kalena dugsiga Maxamed Cali bay tagi jireen oo aad uga fog ilaa 10 kilomitir meelahaas gaaraya sidaa ugu way kaga raysteen meeshii fogeyd ay tagi jireen sidoo kale deegaamadan ku hareeraysan oo dhan arday baa ka timaada aad iyo aadna runtii way ugu baahnaayeen in iskuulkan loo dhiso أنا magacaygu waxa weeyaan Axmed Diiriye Maxamed maamulaha deegaanka Abase dugsiga Abase quljeed diiriyeen alxamdulillah rabbil caalamiin aad baan u salaamayaa caruurta tiradoodu waxay gaadhaan 120 qof weeyaan sidoo oo kale waxa ku farxay dugsiyadaasi la dhisay waalidka ay caruurtoodu wax ka bartaan dugsiyadan waa kuwan hooyooyin kamid ah waalidkaasi oo dareenkooda cabiraya kana waramaya waxbarashada ubadkoodu ay heleen iyo sida baahida ay ugu qabeen wasaaradda aad iyo aad ayaan u salaameynaa waxa weeyaan iskuulka dugsiga sare ee nalooga dhisay xaafadda Digaale aad ayaan ugu faraxnay anagoo caruurteedu waxaan ku wadada si habaqtamayso oo lugaynayso caruur badanna hadhay oo aydkii ku hadhay oo lugayn kari waayeen oo awoodi kari waayeen inay lugeeyaan hablihu ay ka mid yihiin lugta israahdeen wadadaas la idinka helayaa marka iskuulkan loo dhisay aad baan ugu faraxnay aniga ahaantayda hooyo baan hay ayd imika sanadkan ilmo uga baxayo warwar aadaba ay haystay ilmahaagi sidee wadada uga bixi karaa sidee halkaas uu ku harayaa marka macallimiinta naloo keenay iyo iskuulka naloo dhisay aad baan ugu faraxnay wasaaradana aad baan u hambalyeeynaa wasaaradda maaliyaddu iyo wasaaradda waxbarashadu dugsigan mid la soo koobi karo maaha kow yar halkan laga oran karo maaha waa mid miisaan badan leh waxa weeyaan dhismo haday tahay furniture haday tahay dayactir fara badan haday tahay oo ay intuba ay tahay cashuur bixiyayaasha wixii ay bixinayeen oo dib ugu soo celiyeen ilaahayna ha ka abaalmariyo weeyaan waxa weeyaan waana ugu mahadnaqaynaa abaalna waa loogu hayaa waana ubadkeeni waxaynu horumarinaynaa geesta kale dugsiyo hore oo jiray ayaa dhismayaal cusub lagu kordhiyay iyada oo kuwa kalena dayacatir dhammaystiran lagu sameeyay dugsigu dhismahaan wuxuu ka kooban yahay 43 fasal oo wax lagu barto iyo dhismayaal kale oo grand space maxay dhahdaa stoodho iyo xafiisyaba leh tirada ardada waxa dhigtaa labada dugsi oo marka la isku daro 1300 iyo 1400 arday gaaraysa baa dhigata 3000 afwan 3000 iyo 400 arday ku dhawaa dhigata dugsiga sare 1500
iyo 76 ayaa dhigta tiro ku dhow 1600 oo arday qolada kalena waxa dhigta 1700 oo arday ku dhow dugsiga hoose dhexa labada gelin baa uu shaqeeya boqol iyo siyaada shaqaalaha ka hawlgala 54 macallimiinta dugsiga hoose dhexe weeye 40 macallinna waxay ka dhigaan dugsiga sare ka shaqo galaan 94 iyo shaqaale hoosaadkii oo 13 boqol iyo siyaadada shaqaalaha baa ka hawlgala ardayda waxa ka barata dugsiyada dawladda ayaa iyaguna helay waxbarasho tayo leh kuwaasi oo ku farxay kana mahad celiyay tayeynta lagu sameeyay waxbarashada ay bartaan alxamdulillah waxaan nahay ardayda maanta ku sugan gabagabada iskuulka high schoolka alxamdulillah waxaan halkan kala tagaynaa aqoon buuxda tababar dheeriya iyo barbaarin ilaa waalid ilaa heer macallin ilaa heer maamula aad baan ugu faraxsanahay waxaan nahay dad ku faraxsan waxbarashada ay dhiganayaan happy ku ah sidii ugu wanaagsaneyd oo ugu mudnayna u dhiganayaan iskuulka Sheekh Ibraahim dayactir aad iyo aad u fara badan ayaan lagu sameeyay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo ka qaadatay oo leh macallimiin maamul iyo madaxba iyo shacabba cid kasta wax ku darsatay iyo cid kasta oo ku darsan doontaba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada iyo dawladda waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda maaliyaddu qayb ka tahay dayactirkiina loogu sameeyay sana dugsiyeedkan aynu iminka ku jirno dayactir ballaaran baa laga sameeyay labada dugsi baa ka sare dhammaantii waa la dayactiray xagga hoose marmar baa la dhigay gidaarada waa la qurxiyo istamar baa la mariyey albaabada iyo daaqadaha dib baa loo cusboonaysiiyey maxaan idhaahdaa hawl weyn oo dhaqaale fiican ku baxay ayaa la geliyey dugsiga hoose dhexaynu hadda taagannahay qaybta halkan inaga xigtaa 6 fasal baa la dayactiray oo sagxadahoodana marmar la dhigay qaybta dugsiga dhexe 6 kala iyagana la dayactiray waa isla sana dugsiyeedkan 12 fasalba iyo fasal ka horeeyay iyo istambar mar dugsiga la mariyay intaba sana dugsiyeedkan baa waxqabadka ay dawladdu ka qabatay waa uga mahad celinaynaa waxqabadka qiimaha leh saraakiisha wasaaradda maaliyaddana waxaan leenahay waxqabadkii cashuurta waa ka marag furaynaa annagu haddaanu Sheekh Ibraahim nahay inuu na soo gaadhay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dadaal joogto ah ugu jirta sidii dhammaan da'yarta ku jirta waqtigii waxbarashadu ay u heli lahaayeen dugsiyo ay wax ku bartaan iyo in la wada gaarsiiyo agabka waxbarashada dhammaan dugsiyada waxbarashada ee dawladda ayaa waxa laga hirgeliyaa cashuurta muwaadiniinta